ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأدي السلام يا ومدحوينه جبلان دكتور نعيم الشيخ مختار oo saaka ka soo qayb galayso shir ay leeyihiin madaxweynayaasha iyo taageerayaasha yani xisbiyaasha Soomaaliyeed ka dhacay Hiblaayo marka saas weeye gabadha ila fiirada waxa weeye xisbiga xiis aniguna waxaan ahay xisbiga daryeelka Soomaaliyeed marka saas weeyaan waxa leedahay حبيبتي ورتا ما شاء الله ساك وصومال يعني ما حفظاي حلا ديجي جري بريغور مكا حلا ديجي جري حلا ديجي جري ومالين أروبيس sugan ساك أروبيس ومنو تهاي waxaan kula sharafay la qaadanaynaa marka naga yimaado kulanka xisbiyada ee amaanta madaxweynaha Jubbaland gabar runtii ku dhiibatay in ay isu soo sharaxdo madaxweyne maamul goboleedka Jubbaland guushu horta waa barcadii badmadu baa leeyahay laakiin geesinimadu wax adiga naftaada ka soo go'a marka naciimo waxa ay la timi geesinimo inay isu soo sharaxdo jagadaas weyn oo aan weli aan jirin gabar isu soo sharaxday naciima baa aan ku bogaadinayaa aan ku garab taaganahay waa halkii ilaahay u naxariistay walaasheene hodan naaleeya naagiska dhiga gacmeesha dumaro gacmeesha naagiska naciimo madaxweyne insha Allah taala abaayo magacaaga codka magacayga waa Xamdi Axmed Didi saaka aroori boqoran aniga gaar ahaan way waxa la fadhiyaa madaxweynaha Jubbaland anagu xogeen gagar balay masiirka baariid waa mid ana ugu baystay si Jubbaland waxaan si qalqaashanaya asbaan xisbiga socod aad baan ugu hambalyeynaya dhamaan dumarka Soomaaliyeed maxaa leedahay dhamaan dumarka Soomaaliyeed naaga iska dhiga sida naciimada kuna ra'iisul wasaaraha iyo dalka madaxdiisa ka soo muuqdo hal naaga iska dhiga naciimada ilaahay ku guuleeyay waa ku garab taagan naaga iska dhiga xamda maxaa leedahay dumarka Soomaaliyeed abaa waxa leeyahay dumarka Soomaaliyeed sida ay raggu inoo yeesayaan baa ka mid ah ay leeyihiin mid walba waxba ma aha tanaaxu ma ka fikirtaa xamas dumarka Soomaaliyeed naagiska dhiga oo dhiirigelin far badan naagiska dhiga waxay ka dhigan tahay kun dumar ama milyan rag ah adaa ka xoog badan taasaan beenahay not naagiska dhig inay ducuf tahay waa power dumarka leena oo gaara oo hibo siiyay Allah subhanahu wa ta'ala taasaan beenahay naxariistay hodan naaleeya xalba inoo tagto weyn xoojinaa laguna ka soo muuqana naagiska aad waa salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay dumarka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed awood baa leedihiin oo Allah idin siiyay subhanahu wa ta'ala ka faa'iideysta not inaad daciif noqotaan not inaad ragga is hoos dhigtaan marka wixii oo diinta islaamka noo fasaxday waana qaadanaa samaxanda ragga ka haliyayga anaga soo saaray nin kastoo haliyay rasuul Muhammad sallallahu alayhi wasallam hooyadiis waxay ahayd dumar gabadhii ag istaagtay xaaskiisa Khadiija dumar ahayd iyada power siisay xoog siisay dhiirigelin siisay marka ragoo dumarka kama maarantaan marka madaxweyne way noqon karaan wax kasta noqon karaan sa ogaada maxaad u malaynaysaa gabadha hooyanimadii guriga shaqadiisa waxbarashadiisa arrimihii bulshada intaasoo dhan isku qabatay in ay xilna ku guulaysato waxba lama ahan dumarku waa lafdhabarta bulshada ragoo dhiirigeliya gabdhaha waxaan dardaaran siinayaa gabdhaha nolosha ku guulaystay ama heerka gaadhay ee siyaasadda dalka ama arrimaha bulshada ama wax kastaba inay dhiirigeliyaan gabdhaha kale ee waddanka jooga ee dhalinyarada ee keliya jabay wax kastoo ama odayaal dhaqameed ku leeyihiin ama ay raggu ku yeesayaan xamda wadankeena 30 sano ku dhawaad buu ku jiraa dhib iyo qalaasay waxa seetay rag Soomaaliyeed oo isdagaalayaan wax isqarxinayo waxa dhibka sameynaya waa nimanka gabar ilaahay isqarxisay ma jiro gabar ilaahay hadda maxaa leeyahay wuxuu bay dhistaa waxay hagaajisaa wadankeena waxaan aaminsanahay 30 sano inuu dumar daraadi u badbaaday oo u jirno magaca Soomaaliyeed dumarka badbaadiyay baan u aaminsanahay adii maxaa aaminsantahay xaqiiq waay waan kula aaminsanahay maxaa yeelay dumarku dib hadalkeeda badaaye waa dadka lagu nasto waa dadka marka ay adduun oo dhan ay soo rogmado dadka lagu nasto waa dadka baraaraha horseeda waa dadka nabadda horseeda waa dadka goobaabiya ragga waa
وين أغنى هاي برجي بمستياش إن هستين وحي دتك رجع كل يرجلني يعني وضنك بمستيا كسران يعني دمر هاي عن كحسوسته فنانتين سادة سادة سهر هالجل وكله معمودي كله الله يرحمه نجيريوتي مجال هذا ما حسوس sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed waxa jiro gabar la yiraahdo ayaan halgan iyo ayaan naga baajiraan oo ilaa hadda ma sha Allah intay jiraan waa gabdho annagana la eeg dhanka fanka iyo siyaasadda ma sha Allah ka ah wana gabdho ma sha Allah waaye إن شاء الله iska bar ayagana way jiraan xaqiiq waa baranaya إن شاء الله waxaan ku qasbanahay gabar kasto Soomaaliyeed oo dalkan baraaro u horseeda ama dhiirigelin samaysay ama wax kasta oo yani bulshada horumar u sameynaysa inaan bartaan ku qasbanahay horumar waxaan baan diilajeynaya madaxweynaheena inaan soo saarno gabdho taariikhda maanta waa meeqo maanta taariikhdu waxa weeye 17 bisha July 2019 iyo xaruntii xisbiyada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Naciime Sheekh Mukhtaar iyo naag iska dhiga meeshana ka kaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتيدين وقعدته قلبي يو أدم كوكو قريني يدا اليوم قعدنا اسكندرين هيا نيمن قرب كسيد قرب معنا وفورة مقماني نفتيدين وقعدته قلبي يو أدم كوكو قريني يدا اليوم قعدنا اسكندرين هيا نيمن قرب كسيد قرب معنا وفورة haddii aadan qadarin qowlkan ahaan ku idhi hawl ma qaaban karo qalbiga ahaa ijaaba haddii ahaad qubacan ama aad